Daawade weligaa ma isweydiisay sababta uu Maraykanku ugu dhuftay nuclear bomb Jabbaan inkastoo aan ognahay in dagaalkii labaad ee dunida uu ka dhexeeyay in ka badan 100 waddan. Haddii aad ku cusubtay channelkeena adoo raalli ah subscribe noo saar. Mahadsanid. Ku soo dhawaada videogeena maanta. Aan ku bilownay dagaalkii labaad ee dunida. Jabbaan waxay dooneysay in ay qabsato qaybo badan oo ka mid ah Asia, si gaar ahaan Shiinaha iyo wadamada koonfurta bari Aasiya sida Philippines, Indonesia, Malaysia oo lisku oran jiray Greater East Asia, taasoo ahayd qorshe ay Jabbaan ku dooneysay in ay gobolka gacanta ku dhigto. Sanadii 1941dii, Maraykanku wuxuu cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogay Jabbaan, gaar ahaan joojinta shidaalka, xannibaadaha biraha iyo qalabka militariga ah. Jabbaan waxay si xun u aragtay arrintan, maadaama aysan heli karin shidaal iyo agab dagaal oo muhiim u ah sii wadista dagaalka. Taariikhdu markii ay ahayd 7 Diseembar 1941, Jabbaan ayaa si lama filaan ah u weerartay saldhig weyn oo militari oo badeed oo la oran jiray Pearl Harbor. Waxay burburisay markab iyo diyaarado badan oo dagaal, waxayna dishay in ka badan 2,400 oo askari Maraykan ah. Maalin kadib weerarka, 8 Diseembar 1941, madaxweynaha Maraykanka Roosevelt wuxuu ku dhawaaqay dagaal rasmi oo lala galayo Jabbaan. Isla maalintaas ayuu Maraykanku ku dhawaaqay dagaal rasmi ah oo ka dhan ah Jabbaan. 3 maalmood kadib weerarkii Maraykanka, 11 Diseembar 1941, xulafada Jabbaan oo ahaa Germany iyo Italy ayaa iyagana dagaalka ku dhawaaqay Maraykanka kala dhexeeyay, taasoo ka dhigtay in Maraykanku uu si buuxda uga mid noqdo dagaalkii labaad ee dunida. Kadib sanado badan oo dagaal ah, sanadkii 1945, dagaalkii labaad ee dunida wuxuu galay sanadkiisa 6aad. Malaayiin qofna ay ku dhinteen. Jabbaan ma doonayn inay isdhiibto inkastoo aysan guuleysan. Maraykanku wuxuu wajahay hal su'aal oo adag, taasoo ahayd ma sii wadnaa dagaalka dhulka ee Jabbaan, taasoo keeni lahayd dhimashada 100,000 oo askari, mise wax cusub baan isticmaalnaa oo kala jeeda bamba nuclear waan isticmaalnaa. Markaas ayaa xukuumaddii Maraykanka go'aansatay in la isticmaalo bam nuclear ah, taasoo lagu sameeyay mashruuc sir ah oo la oran jiray Manhattan Project, oo socday in ka badan 3 sano, oo lagu sameeyay bambada noocyada kala ah uranium-ka iyo plutonium-ka oo la kala oran jiray Little Boy iyo Fat Boy. Sababta ugu weyn oo loo sameeyay ayaa ahayd in Jabbaan lagu qasbo inay isdhiibaan, in la dhameeyo dagaalkii labaad ee dunida, in la tusiyo Soviet Union awoodda Maraykanku uu leeyahay. Taariikhda markii ay ahayd 6 Agost 1945, Maraykanka ayaa isticmaalay bombo nuclear ah oo la yiraahdo Little Boy, asagoo ku dhuftay Hiroshima. Isla 2 maalin kadib, 9 Agost 1945, bamba kale oo lagu magacaabi jiray Fat Man ayaa lagu dhuftay Nagasaki. Labadaas bombo ku dhawaad waxaa ku dhimatay 200,000 oo qof oo iskugu jiro askari iyo dad rayid ah. Jabbaan wax fursad ah uma herin. Jabbaan waxay isdhiibtay 6 maalin kadib, taariikhda markii ay ahayd
15 Agost 1945 taasna waxay sababtay in uu dagaalkii labaad ee dunidu uu soo idlaado si dhaqsi ah. Taasi ayaa sababtay in Hiroshima iyo Nagasaki lagu dhufto nuclear bomb. haddii aad intaan soo gaartay waad ku mahadsantahay. haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe noo saar. mahadsanid.